هل تعلمون تحيتي عند الحضور إليكم؟ أنا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم. هل تعلمون تحيتي عند الحضور إليكم؟ أنا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حمزة حبيبي يا عبد حمزة تمام. سكور الحمد لله ما شاء الله. خير الأنام بينكم أفشوا السلام إن تفعلوه تحاببتم هذه تحية الإسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. السلام عليكم. تحياتي عند الحضور إليكم أنا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم. يوسف والحمص لو قفل مسامر ونركي يوك سلامي أنا سلامتك قاعدة يعني بدين قفل مسلم كهديك سلامي أنا سلامتك قاعدة يعني واجب تهاي مشكلة بس بيجرو وقت أنا جري أنا سلام حياة بنا وصفة قصة حاليا وقت إنه حالي عم بالكم حين كاساسا مدعي أنا تبغى كان جري ما سلام ميانا مقال حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكذا رميه وقد قفك مسلم كي ولكن خلايا مسلم كاو كله يهي أو شيخ در يشرحيه يوم الحديث كمان بل كالي إلى الدعوة waxaynu sharxaynaa xadiidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo dhaxalkii nebiga ee uhi xaqu lmuslimi cala lmuslimi khams ka koobaad waxa weeyaan ifshaa assalaam radd الsalaam ama ifshaaء الsalaam salaanta in la baahiyo iyo bariidada islaamiga ah ama haddii qofka salaanta islaamiga la salaamo inuu ka qaado haddii la idin salaamo mid ka wanaagsan salaama assalaamu calaykum qofka ku yidhi wacalaykum الsalaamu waraxmat اllahi wabarakaatu intaa u raacay taasaa ka wanaagsan iyadiina waa celin kartaan baa ilaahay uli oo qofkii ku yidhi assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waad odhan kartaa laakiin mar walood ka kordhiso ajrigaagaa badanaya axaadiidta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddaynu soo qaadano ee dhiirinaya ummadda islaamku inay bariidada isugu duceeyaan bariido macnaha waa salaamteenna af soomaaliga marka la eego laakiin tani waa mid duco wadata halka innaga la odhan jiray iska warramayo maxaa ku kaakacdeen ma la soo toosay maxaa la sheegay tani waxa weeye duca ayaa la socota nebigu markuu ka warramaya waxa uu tilmaamay inay nala bilaabantay abuurkeenniiba salaamtu rasuulku wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam markuu ilaahay abuuray nebi aadam dherarkiisu wuxuu la eegaa lixdan dhudhun buu la eegaa laga yaabo inuu kiisa yahay markaasaa wuxuu yihi idhab fasallim calaa haa-ulaa'i nafarin min almalaa'ikati juluus orod aadamow soco kuwaa soo salaam kuwaasi waa kuwe waa malaa'ig halka fadhido oo kooxa wuu u tego uu soo salaamay marka abuurkeennii bay la bilaabantay hoyaatinkeenna dambena way nala hoyanaysaa salaamtu iyo naga hadhi mayso adduunka saynu usii wadno oo ahlu jannaha ilaahay markuu ka warramay wuxuu ihi taxiyatuhum yowma yalqawnahu salaam bariidadoodu waxay isku salaamayaan markay jannada tagaan ereyga salaam salaaman salaaman salaamun ilaahay baa salaamaya malaa'igtaa salaamaysa iyaguna ereygaa wanaagsan bay isku salaamayaan عند الحضور إليكم أنا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم. هل تعلمون تحيتي عند الحضور إليكم أنا إن رأيت جماعة قلت